kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Hiiraan xubno ka socday bulshada qaybaheeda kala duwan iyo hay'adaha ka howlgala magaalada Beledweyne ayaa looga hadlay sida loo horumarin karo adeegyada bulshada aasaasiga ah sida wax soo saarka dalagyada kala duwan ee beeraha iyo sidii loo abuuri lahaa kobac dhaqaale oo ballaaran ayaa maanta lagu qabtay magaalada Beledweyne gudoomiyaha degmada Beledweyne Macalin Cismaan Cabdi Khalaafo ayaa ka codsaday bulshada ku nool gobolka Hiiraan in ay maamulka kala shaqeeyaan horumarka isla markaana maamulka oo kaliya uusan waxba qaban karin dhammaan waxaan diyaar u nahay annaga hadii maamulka degmada Beledweyne heer gobol iyo heer degmo in aan horumarino wax qabadkaayna tusno bulshada si hay'adaha kaleento hawlahaas ku howlan iyo kuwa aan ku howlanan intaba say u arkaan wax qabadkaasi inta badan waxa la yiraahdaa maamulka wax waa iska cuna waxna ma qabanaay laakiin hadda waxa idin tusaynaa in annaga aan wax qabanayno إن شاء الله تعالى هدي لي رحال كدغو أنا waxaan waa sheegay laakiin hadda waxaan rabnaa in aan ka dhabayno rafashada aan maanta ka hadlayno waxaan ka sameey doonaa dhagax dhig aad aragtaan oo maamulka uu bixiyo laakiin lacagta maamulka wax ku qabanayo xagee laga keenaa ganacsatada laga qaadaa Sida Ali Baafo oo ka socday hay'adda MMC oo soo qaban qaabisay kulanka ayaa goobta ka sheegay wadaqooyin lagu gaari karo kobac dhaqaale iyo horumar lagu sameeyo wax soo saarka beeraha gobolka Hiiraan marka laga hadlayo dhinaca horumarinta dhaqaalaha aan ka hadlaynaa dhaqaalaha sidoo ku horumaraya in shaqooyin la abuuro in ganacsiyadu ay si fiican u shaqeeyaan marka taa dadaalkeed in laga soo daadajiyo dhinacay oo maxaa la dhahaa maamulkii dawladda loona soo daadajiyo dadkii deegaanka in ayaga ka shaqeeyaan taa waxay kamid tahay marka saddexda ahdaaf uu leeyahay leedka hadafka labaad uu leeyahay waxa waa in la dhiirigeliyo suuqyo hufan oo dhaqdhaqaaq leh iyo kordhinta kalsoonida maalgashiga deegaanka in suuqyadu ay shaqeeyaan in maalgashi la sameeyo intaas dadaalkeedii ayaa la rabaa in la gaaro waxaan lagu gaari karaa in iyadoo la isticmaalayo habkan ama nidaamkan LED in la isticmaalo iyo hadafka saddexaad oo ah maalgelin bartilmaameed leh gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka Hiiraan ee dhinaca maaliyadda Khaliif Xuseen ayaa sheegay in bulsho kasta oo isku raacda in ay horumar sameeyso ay gaari karaan hadafka ay doonayaan taa beddelkeedana maamulka gobolka Hiiraan oo bilaabayo in bulshada lagu dhiirigeliyo in ay wax qabsan karaan laakiin waxaan cadeynaynaa halkan ka cadeynaynaa insha Allah in aan u taaganahay horumarka gobolka Hiiraan iyo degmada Beledweyne intaba ummad walbana ayaga gacmahooda wax ku qabsado iyo aqligooda marka waxaan leenahay reer Hiiraano gacmo wada jiray wax ku gooyaan aan isugu tagno aan wax qabanno aqliga iyo cududeena iyo maaragtay dhaqaalaheena aan isu keenno insha Allah dad wax qabsada maaragtay horumaro Cabdishkuur Ismaan Ali SNTV Beledweyne